Assalaamu calaykum saxaabta kusoo dhawaada channelka. Dad badan ayaa si mistakenly waxay u duubaan ISO fileska ayagoo ku duubayo flashka ay rabaan inay ku duubaan. So mararka qaarkood waxaa dhacda ISO fileka aan duubayno computerkaan isticmaalayno which partition style uu yahay MBR miya ma GPT maanta waxaan rabnaa inaan sharaxno maxaa laga wadaa horta MBR maxaa laga wadaa GPT aynu isla aragno. So waxaanu soo sheegnay inaynu niri waxaa jiraan two partition styles oo loo kala yaqaano GPT iyo MBR. So maxay kala yihiin GPT iyo MBR? Aanu fiirino. GPT waxaa laga soo gaabiyey waa guide partition table halka MBR laga soo gaabiyey master boot record. Maxayna kala yihiin aynu fiirino. Markii la joogo computerka partition styleskiisa si loo manage gareeyo datada loona organize gareeyo looguna keydiyo storage deviceska la isticmaalayo haddii yihiin SSD ama HDD haddii yihiin waxaa la isticmaalaa laba partition ayuu isticmaalaa two main types ay jiraan oo partition styles. So midka koowaad waa master boot record kan waa older version waana traditional computers waxaana isticmaali jireen those systems kuwa loo yaqaan gadaal dambe ayaan ku ogaan doonaa. GPT waa guide partition table waxaa isticmaala kombiyuutarada modernka casriga ama kuwa advancedka oo hadda la isticmaalo. Maxaa laga wadaa MBR? MBR waxaa lasoo introduce gareeyay ama lasoo ikhtiraacay 1983 waxaana isticmaali jiray kombiyuutarada loo yaqaano those systemska. Wuxuu support gareeyaa 4 primary partition ama 3 primary partitions iyo 1 extended hal partition oo la kala jebiyay haddii C drive, D drive, E iyo F oo extended So maximum hard disk ama size uu aqbalayo meesha ugu badan waa 2 terabyte 2 TB bootrarkiisana wuxuu ku keedsadaa waa 512 byte waa vulnerable to corruption macnaha mid u nugul in data error u dhaco ama window error u dhaco si window kale loogu shubo ama datada inay vulnerability ay leedahay macnaha inay la hagareeyo. Waxiga GPT asagu waa wuxuu isticmaalaa part of UEFI standard UEFI waa modern boot systems boot systems waxay kala ahaayeen waxaa jiray boot system nooca loo yaqaano BIOS oo kombiyuutaradii hore iyo hadda nooca casriga oo UEFI loo yaqaano. Marka GPT wuxuu isticmaalaa UEFI isticmaala halka MBR uu isticmaalo BIOS. Support partitionisku waa aqbalayo waa 128 partition halka MBR uu aqbalayo kaliya 4 partition style. Size-ka uu handle gareyn karo waa 2 terabyte wax ka badan 2 terabyte waa meesha ugu yar ilaa iyo wax ka sii badan. waxaana wuxuu haystaa multiple partition backups uu leeyahay backupyo badan uu leeyahay halka MBR-ka uusan backup lahayn. More secure and reliable. Aan isla fiirino marka isbarbardhigooda. So marka isbarbardhigooda partition style ku aqbalay kan waa 4 kan wuxuu aqbali karaa waa 128 GB diskiga ama maximum diskiga oo aqbalay MBR waa 2 terabyte kanna meesha ugu badan waa 9.4 zettabyte waa midka ugu badan yottabyte ugu badan oo weligeed la gaarin laakiin zettabyte waa nooca ku xiga macnaheedu waxay u dhigantaa 1 zettabyte wuxuu u dhigmaa 1 bilyan oo terabyte 1 bilyan oo TB waxa u dhigma 1 zettabyte. kan wuxuu isticmaalaa BIOS kan wuxuu isticmaalaa UEFI kan backup ma lahan kan backup table ayuu leeyahay. Kombiyuutarada casriga kombiyuutarada hore ayaa isticmaalaan MBR halka kombiyuutarada casriga ay isticmaalaan GPT. So aan isla fiirino qaabka ku ogaan lahayd kombiyuutarkaada inuu yahay GPT iyo MBR. So si aad u ogaatid partition style-ka aad isticmaalaysid waxaa dhahdaa window plus app then waxaa ku qortaa meeshaan erayadan meeshaas waxaa ku qortaa disk m management.msc. So intaas markaa ku qortid waxaa dhahdaa run waan geen doonaa
management meesha laga maamulo disk management nigin doona meesha waa meesha laga jabiyo partitionska lagana organize gareeyo so si aan u ogaano partition style ta isticmaaleno disk zero weena kan waa pen drive y disk zero weena imaw waxaan ku dhahdaa right click then properties then waxaa dhahdaa volume meeshaan wax kaaga soo baxaayo partition style-kaada haddii MBR uu yahay meeshaas wax kugu soo kormi doonta MBR laga soo daawiyay master boot record halkii uu yahay GPT ama modern computer systemska ay hadda isticmaalaan oo teknolojiyada advanced-ka ah so sidaas ay ku ogaan kartaa partition style-ka aad isticmaalaysid adoona soo ogaanin partition style-ka waxaa isku dayeen in aad wax yani flash shay bootable uga dhigtid ilaa aad soo ogaatid which partition style isticmaalaysaa so waan filayaa in muuqaalkan waxaan kugu soo kordhiyey fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysayna soo boqoto channelkeena noo subscribe gareey muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada ku mahadsantahay barashada